warfaafintu waxay ku jirtaa takhasusaad ayaan Soomaalidu u aragba wax la barta ay tahay wax la bogsado oo meelaha laga soo iyo la qaato iyo inda adeegnimo iyo ma hadli kartaa iyo wax u baahan shuruud iyo waxa ay sheegayo kale الإلقاء الصحفي قفك الله هو بين مخارج الحروف بسم الله الرحمن الرحيم داود يالك سو دواده برنامجك مرتور ee toddobaadkan waxa marti noo toddobaadkan Dr. Cabdifataax Nuur Ashkir Dr. oo ku faraxsanahay inaan nagala qayb gashin barnaamijka oo naga aqbashid codsigeeni soo dhawow marka hore waa kuma Dr. Cabdifataax Ashkir waan dhawahay ma santihiin anigu magacaygu waxa la Cabdifataax Nuur Ahmed waxa la igu naanaysaa Ashkir waxaan ahay muwaadin Soomaaliyeed reer Puntland nashay horantii 8meeyadii wax ku bartay Puntland gaar ahaan magaalada Boosaaso heerkii kala duwan ee waxbarashada hoose dabadeed u kictimay halka ay dalka Suudaan ka baxay darajada koowaad ee jaamacadda Afriqiya Caalamiga halka masterta iyo PhD daba aan ka qaatay jaamacadda Umdurmaan Islaamiga waa ma santahay Dr. Ashkir marka laga soo tago hooyahaas dheer waxbarashadii iyo ardaynimadii Suudaan waxaad ka shaqaysay Puntland waxyaabo kala duwan shirkadaha waaweyn ee dalka shaqeeya siyaasadda oo aad ku jirtid intaanan kula aadin bal noloshaas kale ardaynimadii Suudaan maxaa dadka uga sheegi kartaa maxaa ka xiiso geliyay marka xasuusatid waayihii Suudaan runtii qofku markuu yaani dal qurbeed wax ku soo barto wax badan baa runtii xiiso gelinaya imaam Shaafici waan xasuustaa gabagiisiyo wuxuu yiri taqarrab aan al-awtani يعني ودنك ما هتكبح في Soomaaliya ku sheegaya badi waxa suuragal dadka is afcaal ku aqoon qofku inuu qurbanimada noqdo shan shay bad xalsiisaa waxa ugu muhiimsan ee xalsiisaa waxa kamid ah dad barasho iyo dal barashaba dadkana waa baranaysaa dalna waa baranaysaa Suudaan runtii waa dal annaga hadan nahay Soomaali nagu leh saameyn xooggan oo waxbarashadayadii Soomaaliya markay ay noqoto waxaan aqrinayay book laga qoray يعني aabihii waxbarashada Soomaaliya waxa la lahaa wuxuu wax ku bartay dalka Suudaan ayuu wax ku bartay wuxuu ka baxay jaamacad la oran jiray jaamacad Bakhtur Rida awal kuliyad bay ahaan jirtay laakiin hadda jaamacad loo bedelay waxay ku taalaa gobolka Niil al-Abyad dabadeed waxa ku xigay waa taqaana wasiiradda arrimaha dibadda hadda ahaan jirtay Fawzi hadan xildhibaanka ah Fawzi Xaaji Yuusuf oo aabaheed ah asaguna waxa lagu tilmaamaa dadkii Soomaaliya waxbarashada hormuudka u ahaa afka Carabiga markay noqoto asagana waxa uu ka soo baxay dalka Suudaan ee la yiraahdaa marka Suudaani waa dal Soomaaliya ku leh abaal fara badan waliba xagga waxbarashada iyo aqoonta ay ku leedahay abaal وانا dalalka Carbeed ee Soomaaliya saameynta ku leh ayada iyo Masarba Suudaan marka waxay dunida kale ugu duwan tahay Carbeed Suudaan waa dal waxa lagu tilmaamaa waxa ku nool 570 af ayaa laga hadlaa hal af kaliya laga hadlo afka Carabiga oo dadku u maleeyaan inuu dalkaasi ugu badan yahay laba qabiil kaliya ku hadasha oo qabiilka al-Jacliya iyo Shawaayiga laba qabiil oo waqooyiga Suudaan daga laakiin dalkaas oo dhan baa waxa lagu sameeyay waxa la tacriib والعربية وعربة على قديم مركا يعني لبدا ضل وكلئة لبدا أف كلئة بعد الكاسي يعني لبدا قبل كلئة أفك عربي وكهذا لكن تكلم كهذا أفك الدون أفك أنا غني يصير هنا شن بقردات الكوية مركا قفك مركا أطباء ضل سيد السودان وكلا وصوماليا هي ودريما يا أمضوه إلى كردوين هنا ويسهل أمض تكون أونلاين أمض فربضني ضلكاسي يكون وشاهي قومية فربضني يكسو كل الجدال taas waa mid weeye waxa kale oo jira dalka Suudaan waa isku dhaqan dhownahay aniga ayagu Soomaaliyeed nahay fankooda suugaantooda yaani waxay dhahaan marka ka hadlayaan suugaanta Suudaaniintu waxay aad u jecel yihiin inay dhageystaan fanka Soomaaliga heesaha Soomaaliga mar allaale iyo markaad qof Suudaani ah la kulanto waliba dabaqadooda wax garanaysa waxay su'aal ka weydiinayaan laba fanaaniinta Soomaaliya kamid ah waa ninka la yiraahdo Allahu naxariista ee Maxamed Salman Tubic iyo Xaliima Khaliif Mogol marka aad tirahdid way dhinteen way ku Fatiha ala ruuxihima
faataxa oo aqrino ruuxooda yani sida ay u jecel yihiin waliba Xaliimo Khaliif Magool saameyn gaar ah ayay ku leedahay oo heeso badan oo Suudaana oo taariikhda galay ayay qaaday waxa kamid ah yani nimankan misalan Suudaan markii xornimada qaaday يعني حزب قال يقول لي حزب الشيوعي حزب السامين حوجن كلها أيوها فم بدن بيسميين وحسميه هسه سنين السودان هو مركز ضمن ليبيا يكون وراء وين وين هو الدكتور محمد الفيتوري بالأورنجري وحو سميه وحوي أصبح الصبح للسجن ولا السجان باق وحو هيس عنا وصار عنك بعد أصبح الصبح للسجن ولا السجان باق هيستاس waxaa dib ugu luqaysay oo qaaday Xaliimo Khaliif Magool mar ay booqatay Suudaan waxay kaloo aad u xasuustaan heesay Xaliimo Khaliif Magool caan ku noqotay Suudaanta dhaxdooda oo ka hadlaysa guurka heestaas waxay oran jirtay maraheed wuxuu ahaa yaa maashi للباريس جيب لي معاك عريس شرط يكون لبيس من هيئة التدريس يعني كان باريس ودولايو جيب لك معاك عريس نين أروسا كان شرط يكون لبيس هذا نين هنان له ومعناها سي هنان له ألبسن شرط يكون لبيس من هيئة التدريس كان سوجيدا هيئة وحبرشة وقاس وحبرشة يضدك وحبرشة كشقية أي السودان مدنته كواد أولها هل كأنه دبطاتك ونولها وحاجة رنيسة السودان تيجي يعني واسكو أقلبه المقتهي قالوا قف كلا سامنته كله يعني بي بدنا كسر هذا القبصتها وأنا كسر هذا القبصة جري معي والضبطات وتد أقتها يوم واجي كعنكو وصباحي وتي لجوه سجري وحوي نمان أسكري ده هذه هنا أما الضبطات داية لهين ضميرك أبكر بودري عبد الفتاح واحد قرتي بوجاك دورة بل إنه شرح قرما دورته باللفظ إنه وحقرتي وسؤال مهم زكريا والله runtii dhowr buug ayaa isoo baxay ilaa 4 buug ayaan ku tilmaami karaa inay isoo baxeen buugay ugu horeeyay waxaan ka qoray magaalada Boosaaso iyo sooyaalkeedii kii labaad aan ku xijiyay wuxuu ahaa waraysiyadeedii hal door Soomaali ajaanib leh oo aan ku waraystay rag doora oo Soomaaliya saameyn ku yeeshay ha noqoto dhinac aqoon dhinac siyaasadeed dhinac suugaan iyo fan dhinac faafinta diinteena islaamka iyo dacwada qolo kasta ayna waxaan siiyay category ama yani booska ay habooneed ayaan qolo kasta aan ku qoray ujeedkan kala ahaana wuxuu ahaa bal in Soomaaliga qofka Soomaaliga ee dhalinyarada ah ama qofka Soomaaliga ee aqoon-yahanka ahi bal inuu ku baraarugo dalkiisu inuu dad hal door lahaa badiba waxaan tusaale u soo qabsanaa dad naga fog مثلا ممكن كهذا إنه يعني وح وناكسن يدور وناجة سومالو بدنا بحكسوا هذا القبصة نرسم منديلا بحكسوا هذا يقول نرسم منديلا ساسوها أما مهاتما جاندي يمكن الأورنج الهندي يكون سابق أفرتني زبادي حرية دي وهالجماعة مسلمين تا يري حقوق خلاص يمكن دم الهندوس كإدلين هندية بيوصل هذا القبصة مركز لقاها الله يعني هجان يمام الوناجنا يعني ضيوف بدن بأسقف استادوني وحيكون لي مهاتير محمد وكل وحى مركز استوسيي إن جيران ضد صومالي يعني عرضت من أورنجرتين وبالمثالي يتضح الحال يعني تصالح هذا مركز كسر هذا القبصة تاعي خوف الصومالي جوا فهم كرا ضد نوع عصو صومالي أيام الصومالي تاريخ أهان وسامين كل هذا حق هذا النقطة أخلاق هذا النقطة حق فافنت وناق هذا النقطة نوح قصوينك آدك يقول يابك بدن وأنا عن يعني صوماليين أي مناطق كلها إن لتبيه كله حكم إذا رشيق دي جنبال أكله اللي أورنجر جنبال وأدر لوها أيجري وهذا كورنا عن كقري نوح حسوستا عن كقري جنبال الوقفة في الجزيرة عوام بنو بحي وعن كور سيرة رجل صومالي أدمن الصدق سويال كنيس صوماليا رنت قبتمي رنتي آخر سفر بدن بويا شيء dadka noocaas oo kala ah markaan ka hadlayno mesela dadka aan ku boorinayno nabigeena sallallahu alayhi wasallam wuxuu yiri inama bu'ithtu li utammima makarim al-akhlaq akhlaaqda markaan ka hadlayno kale gambool waxaan aaminsanahay inuu mudan yahay in lagu soo hadal qabsado oo laga hadlo oriyada gambool oo kale in la soo qaato yani maamul wanaag dad far badan oo maamul wanaag ku canbaxay ayaa Soomaaliya soo maray halganka dad far badan oo halganka iyo dadnimada ku canbaxay ayaa Soomaaliya soo maray gumeysi iska xoreynta مثلا waxay ku leeyihiin dadku taariikhoodu aad u soo bandhigaano ilaa hatta Umar al-Mukhtar filin laga jiray filin weyn ayaa laga jiray Umar al-Mukhtar
oo dunida oo lagu baahiyay Umar Mukhtaar wuxuu ahaa nin halgamaa ah dariiqada suufiga oo dariiqa sunuusiya ee ka jira Liibiya waliba aageeda Benghazi dhulkaas ayuu ka halgami jiray يعني هل كان كركل قاعد يعني أنا نروح على الناس محمد عبد الله حسن وكله يضل من الجميسة هلا درلي مركا وحن قادوا مثلا يعني إن لوجه هو تصاليه سوماليا يدخل كأنه سوماليا ويوقف سوماليا أيضا سكان فهم كلام تاس أيانا وحي كنتي إن بالبوق عن كقرا هو كان كي هل ده سوماليا أجانب بيكون عن قصب بوق عن قرية ضد فرد أجانب أمريكي لكن وحن تسالينا هي بلدتك السومالية إن السياسيين ليين dhaqan leeyihiin wax kale leeyihiin anigoo ka ambaqaadayo umad kastaay in ay soo bandhigto hal doorkeeda ayaan waxaan isiri bar hal doorka Soomaaliyeed suuqay waad mahadsantahay doctor buugaagta aad qortay waxa ka mid ah buugga dhigaal qalin iyo dhigaalkii kaas oo kale maxaad xog ku saartay sidaas fikradda inaad buuggaas qortay kugu soo dhacday runtii fikradda buugga inaan qortay ugu soo dhacday ciwaanka buugga uu bixiyay naftigiisa ciwaan igu soo dhacay buu ahaa oo aan aad ii soo jiitay wuxuu bixiyay qalin iyo dhigaal ayaan u bixiyay Soomaaligu marka uu sii dhadhamta waa luqad aad u qoto dheer oo fog qalin waa qalinkii aan isticmaali jirnay Soomaalidu qalin buu ahaayo miimkii baa waxa u rugnay nuun meel kastoo miim ahna waxa u rugnaa nuun waxa al-ibdaal laba qaasiyo luqadaha lagu gartaa waxa la yiraahdaa badal mid kale lagu bedelo oo isbedelo moogtahay luqadda phonetics sawteed waxa laga jira moogtahay Soomaalidu marka meelaha ugu badan ay bedelaan waxa kamid ah miimka meel kasto miim anuun bay u bedelaan waxa kamid ah caalim bay dhahan waxa kamid ah muallim bay dhahan qalibna ayadu ku jira marka qalin baa iri waxaan u iri يعني واقع Soomaaliyeed baa saas oo u bedela meel kasto miim ah nuunan yaqlibuuna al-miima nuunan macnaheedu markuu tajwiidku bari jiray nin Suudaan waxa xasuustaa sheekh weyn ahaa uu nagu soo hadal qabsan jiray marka Soomaalida iyo siday u bedelaan meel kasto miim ah inuu u bedelaan وانا wax dhaqan carbeed oo soo jireen oo anaga kaliya oo san ugu okeeno ummada fara badan ayaa naftigooda u bedela oo tusaalayaashu badan hadda dan tusaalayaal soo qaato wax laga bayaa waqtigood nagu soo dheeraado marka qalin baa iri iyo dhigaal yani Soomaalidu yani waxay u isticmaalaan laba eray qorid iyo dhigid qorid waa naxt wax la qorayo oo waa sax oo qoraalku waa naxti ka fikrad buu baahay dhigaalna waa wax keed galaya oo Cabdisanimo hadalta waa taariikhda qorab buu yiri wuxuu yiri wixii qoran baa qorumo hare wuxuu hadal qiimo leeyahay waa rutis waxaan ugu talagalay marka inay waxaani haraan oo wax hara ay noqdaan oo ay wax furan noqdaan marka waxaan ciwaankaasi marka u doortay macnahaas guud macnaha labaad oo ku hoos jira waxa weeye ciwaanku wuxuu ka hadlayaa qumanayaal mutafarriqaad dhaqan baa ku jira siyaasad baa ku jirta taariikha ku jira iyo soo yaallo marka maadaama ay kala duwan yihiin baa magac u bixiyay qalin iyo dhigaalkii waa santahay buugga kale oo xiwaaraadkii oo ah waraysyadii aad qortay intii aad warbaahinta ka shaqeynaysay oo aan akhriyay waxaad moodaa inuu u badan yahay inaad aaday dhinacii dadkii cilmiga ka shaqeyn jiray ama inkastoo dhowr qof oo ajaanib ay ku jiraan isaga sidee fikradiisu kugu soo dhacday maxaa keenay inaad u badatid inta badan dadkii ama professorada jaamacadaha ahaa ama ganacsiga oo aadan Sheekh Doon iyo ku jiraan culimada oo Sheekh Yuusuf Cali Caynte iyo rag noocaas ku jiraan oo maxaa dadkii kale ugu soo diri weeday oo dhinacyada kale ila Soomaaliya cilmi iyo wadaadda kaliya kama halgamaynin dhinacyo badan ba halgan ku socday sikiro ku socday su'aashaas horta qoraalku wuxuu ahaa aniga qoraal taxana ah oo aan ku qori jiray beejajka waxaan xasuustaa beejda Soomaaliya اليوم oo beejkii ugu horeeyay Soomaaliya af-Carabi wax ku qoro ahaa iyo shaahid iyo kuwa Soomaaliya ay wardheer news ay kamid yihiin runtii dad badan baan ka taariikhiyay dadkan ka taariikhiyay waxaan ku xulanayay laba yani halbeeg laba miciyaar koow anigu waagaas dawladda iyo siyaasad kuma jirin oo ma haysan imkaaniyaad fara badan imkaaniyaadku waxa ugu badan markii aad hadda siyaasad ku jirto oo wax qorayso qofkaad la balantaa wuu ku imaanaya oo dadku badana Soomaalidu waxay tiraahdaa waa inuu ku garaadle laakiin waagaas nin waxaan ahaa markaa jaamacad ka soo qalin jabiyay oo meel ka shaqeeya ama shirkado ama hay'ado ka shaqeeya marka qofku waxaan ku xulanayay inuu markaas ii dhow yahay oo aan heli karo yani uu aan gaari karo taas wuxuu ahaa halbeegyada kamida halbeeg kale waxa ahaa in qofkani uu yahay qof mudan in laga taariikhiisa la qadimo waxaan aad ugu faraxsanahay dad fara badan oo anigu ayaantaa qoray
qoraalka aan ka qoray inay noqdeen marjac kaliya loo laabto tusaale ahaan Allah naxariistay sheekhi markii la dilay Dr. Axmed Xaaji Cabdiraxmaan yani wax ka qoran oo laga hayay ma jirin nololkiisa laakiin qoraalkayga aniga wareysiga aan wareystay ayuu ahaa waxa kaliya uu bixiyay runtii wuxuu aniga ay ahaa marka aan u wareysanay sababta aan rabay Axmed Xaaji Cabdiraxmaan usoo bandhigay wuxuu ahaa Axmed Cabdiraxmaan wuxuu ahaa shakhsi mawsuuci ah mawsuuci macnaha yani فرق واحد دحيا عالم إيه مثقف أنا أقول مثقف إلهها نكري أحمد الشيخ عبد الرحمن الله يرحمه صابته وحال مثقف كم حال وقرته وحال من كل حديقة زهرة وخقصته بيركستاي يعني أوبح يعني وحكجرناي فانكي وحكجرناي سوغانتي وحكجرناي دينتو وذاتكو وبوني وين وحكجرناي سويالكي رسمه وحكجرناي عيدا لماذا أو أصلا صوها وحفر بدن بوها markii ugu dambeysay anigu aan wareysanayay intuu sadman ka hor wareysada markii noo socday wuxuu markaa waday oo aqrinayay oo agyaalay xasuus qorkii mudakaraad Madeleine Albright ee dhawaa dhimatay wasiir madbadada ahaan jirtay islaan Mareykan oo Yahuudiyada waa islaamta uu ka qeylanayo buuggiisa markaad akhrisid ninkii la yiraahdo Butrus Ghali buug aan ah buu qoray oo la oran jiray 5 sanawaad fi baytin min zujaaj 5 sano guri dhala ah islaamtu ka qeyliyay bal tagtaba ahayd naftay i gashay Madeleine Albright baa marka islaan asalkeeda ka soo jeeda Yurub Tambari laakiin Mareykan iyo siyaasaddiisa u shaqeyso oo wasiirad ka ahayd Yahuudiyada marka xasuus qorkeeda inuu aqrinayo Dr. Axmed Xaaji Cabdiraxmaan de waxa jira asura namadiya muuqaal maskaxeed qofka ka haysato wadaad qofka Soomaaliga ah waxa ka haysataa inuu yahay ma aragtay qofkii lagu waa sheekh midalan inuu diinta iyo ku foogan yahay oo يعني لكن وفي عنتهاي قفك يعني إن أغرسكيسو يميلوه وحكي إيجا كل دوانته وصل هل أنقل وحكي إيجني أنقل فلا بدن وحكي إيجا وحكي أنفعسا قفك شيخ أهي مثلا رياضة أنا فيري لبا أنا يبقى إيكرا بحسن وداد يا شيخ لبا إيكريين وأنا صومالي دول كله بحسن جدي سؤال قفك ترى قفك سوى الشيخ معناه هذا وحوي عربته مركي تلمام يسو هرتو قفكو والشيخ يا شيخ معه عرفت مركز القفك الولاية والشيخ معناه هذا والشيخ مركز الولاية معناه هذا 40 فنا أفرتن فن ودين تكمده بو حجرنايا وخلف إن كل جرمايا لكن سوماليا أنا بحنت أن قتل من هذا الشيخ أن قتل منه قفك النوع عسمه قفك استو يعني وذا ودين تقوله ودعوة كحرا الشيخ من قتل منه نفتكر اهتمامات في مرقة قبل حسنا دم لهانو يعني ما دام وحي قلدينهم من لبضوا اسلا قلدنادين waxa way sheekh bay dhaheen ninkii carabiga wuxuu yiri kitaabka kawakabka ku taala mugtay samatni bi sheekhin walastu bi sheekhin inma sheekhu man yadib dabiba wuxuu ku tilmaantay buu yiri sheekhina sheekh waxa yiraahdaa qofka waayeelka odayoobay oo u soo ku socdo xagga da'da Soomaaliya laadeen ee meesan oran sheekh badan ma dhahan laakiin qofku waa sheekh sida saxda ah marka sheekh waxa yiraahdaa qofka 40 fan diinta wax ka yaqaan Soomaaliya waxa lahayd sheekh waxa lahayd macallin waxa lahayd oo waxa lahayd wadaad kun hadee wadaadka qofka ahi wadaadka muuqaal ma ahane waa dabeecad wadaadnimadu yani waa wadaad alxub wey firi Imam Shaafici gabay dheer uu lahaa baa jirtayo idan mar ulaa yaaka illa takallufan fad'uhu wala takfid alayhi ta'assufa fa fi an-nas abdalu fatarki rahatu fi al-qalbi sabr al-hubub wal-jafa fama kull man tahwahu yahwaka qalbuhu wala kull man safaytuhu laka khasafa firi yani waxa weeye safwa al-widadi ba ku jirtay سف الودادي يعني جعلك قلقعلك مركا وداد ويه وداد معه هرتي صعدا وانا ودي بكتمي جعل واي قف دينتي حبارسن oo dadka wax jeclaysiinaya oo wanaagsan oo galgacalay maxaba qaba way qofka wadaadka lagu leeyahay wadaad ma kan laga cararay waa kun lagu soo cararo ka waran waayahaagii ka shaqaynta warbaahinta sida aad ku gashay bal si kooban muddada aad ka shaqaynaysay iyo waxyaabaha aad ka baratay runtii warbaahinta marka aan ku dhaho warbaahintu anoo saxaafadda jecel ayaan horta ka duulay dalka oo aan Suudaan aaday waxbarasho u doontay waxa saameyn ugu lahaa afka Carabiga ayaan ilaa yaraanteedii anigu aan jeclaa in aan barto nolosheeda dad badan baa saameyn ku leh dadka saameynta ku leh oo jeclaysiiyay afka Carabiga waxa kamid ah nin macallin ahaan jira Allah naxariisto Ustaad Zakariya محمود عيسى ودنت قرح يد حمر كدعا لو دلي wuxuu noo dhigi jiray maadada al-adab al-arabi suugaanta carabta marka wuxuu ahaa macallin xafidsan gabayada oo dhan
ama ha noqoto kuwii hore loo tiriyey almutanabbi iyo yani albuxturi iyo wixii la mid ah ha noqdeen ama mucallaqaat sabca oo imru'ul qays iyo zuhayr bin abi salma iyo halka ka sii wad ama kuwa asaga kuwa ka dambeeyay kuwaasoo qarnigii 20aad ahaayo shawqi iyo waxa la mid ah oo waxaan xasuustaa shawqiyad gabadhii uu tiriyay axmed shawqi oo dhan dushu ka hayay macallin zakariya oo waa uu xafidsanaa marka runtii jacaylka carabiga aan u qabay iyo afka carabiga aan jeclaa waxay dhaxal siisay marka inaan dhageysto idaacadaha gaar ahaan idaacadda BBC-da qisma luqada carabiga oo soo gali jiray waagaasi dad far badan ba ka shaqeyn jiray dadka aragto jasiirada ka shaqeeya oo kamid yahay Jamiil Aazir iyo Shiblaq kama shaqeyn baan u maleeyahay asaga oo kamid yahay Ilaahay barka beelin Ahmed Mansour iyo ay kamid yihiin Dr. Faisal Qasim iyo ay kamid yihiin ma aragtay nin Tunisi ah haday hadawta buug qoray saxaafada ku saabsan محمد كريشان iyo dad far badan oo noocaasa yani dabadeedna Al Jazeera furantay 96 marka aad baan u daawan jiray marka la furay kanaalkaas Al Jazeera BBC-dana aad baan u dhageysan jiray idaacada far badan oo waagaas hawada soo gali jiray magaalada Boosan joogayo badda casban saaranahay oo madama booso mawjadaha gaagabani wax kasto keenaysaa idaacad cadan idaacad origin laftigeed aad u sareysay laftigeed aad baan u dhageysan jiray marka qub waxa yiri ma saxaafada baratido yani marka jacayl aan saxaafada u qabo oo ay ugu yeesheen saameyn idaacadahaas iyo waxa kala duwan oo dhageysan jiray mar waxaan soo gaari jiray laba joornaalo joornaal majallat al-mujtama' iyo majallat al-muslimun oo ka soo bixi jiray Sacuudiga mid ka soo bixi jiray Kuwait hadda Mansuur ka arkaysan Al Jazeera ka shaqeeyo kale labadiisa barnaamij ba labada joornaalkaas ka soo raray bilaa xuduud iyo shaahidun ala al-asr wuxuu ahayd column macnaha amuud uu ku qori jiray labada joornaal buu u soo raray Al Jazeera uu hadda ka baahiyaa moogtahay marka saxaafada carabta ku xirnaanshaheeda iyo akhrinteeda ayaa waxay idhaxal siisay iyo anigoo yarba lagu soo anqariyay jacaylka afka carabiga inaan saxaafadii balbarto taas keenta marka inaan takhasus saxaafadeed jaamacadda markaan aadahayba waba yacdaaba anigu takhasuskay dadku waxay aad takhasusku uu ka galo hebel saxaafad mar anigu barto muddo inta la eg baa joogtay kulli waxaan ogahay inaad qoraalka qaybta qoraalka inaad u badnay saxaafadda carabiga ha qaybta qoraalka u badnaa oo wax qoridaan qori jiray waxaan ugu keentay markaan kulliyadda dhiganayay kulliyadda saxaafadda yani macallimiinteedu nin hadda kamid ah professor Awad Ibrahim Awad oo runtii nin aad u wanaagsan oo waxa la adakaatira Dr. Awad Ibrahim Awad baa 3 PhD buu sitaa macallinkeenu ahaa wuxuu yiri waxaad ku fiican tahay idaaci marka loo fiiriyo codkaaga yani markaan hadlahayo fiirin jiray marka sawdka wuxuu waajahwari ayaga kale yaqaanaan qofka intuusan idaacada galin qofka Suudaaniga ah dunida dhan waa la mariyaa waxa la mariyaa tababar waxa kamid ah tababarka waa la mariyaa ilqaa as-sawti qaabka wax jeedinta marka maada kamid maadoonka qaadan jirnay ilqaa as-sawti makhaarij al-huruf la fiirinaya sida makhaarijta xarfaha ay ka soo baxayaan baa laga tababaraya marka ilqaa as-sawtiga waxa lagu gal garan karaa qofka idaaci ay istaahil qofkan istaahilin marka maada noocaas noo dhigi jiray ilqaa as-sawti marka ardada asaa kala saari jiray laakiin anigu waxaan jecelaystay tan qoraalka ah oo joornaal far badan soo ka soo qori jiray tababaran jiray wakaaladda wararka Suudaan baan ka ahaa taftire mar oo ka shaqeyn jiray marka halkaas aan qoraalka jeclaaday waad mahadsan tahay warbaahinta afka Soomaaliga wax ku baahaysa ama qoraal ha noqoto ama idaacado iyo TV-yo sidee uga qayb qaadan karaan in fariinta saxda ah ay bulshada gaarsiiyaan gaar ahaan xilliyada lagu jiro duruufaha gaarka ah oo masiibooyinku ay jiraan mesela hadda xilligan abaaruhu jiraan oo kale maxay noqon kartaa kaalinta warbaahinta ee bulshada waliba intooda maaragtay sida gaarka ah ay duruufaha markaas taagan u taabanayaan horta warbaahin oo dhan saddex shaqo qabataa shaqo kale ma lahan shaqo kamid ah waxa weeye waa waxbarid weeye midna waa wacyigelin midna waa madadaalo markaani waxa weeye waa tii wacyigelinta ahayd weeye tan taagani wariyaha dhabta ahi waa kan ka shaqeeya dadkiisu markay duruuf haystaan ka shaqeeya inuu dadkiisa duruufta ka saaro adag ku dadaala inuu u noqdo cid u dhaxaysa dadkiisa iyo cidii kale oo wax u haysa kaalmo ah wax tarid ah u haysa marka wariyaha saxda horta waa kaas weeye marka kaalin xoogan ayuu ka qaadan karaa xilligan oo kale
aan kaga faa'iideysto fursadan maadaama guddiga abaaraha aan xubin ka ahay waxaan farin u dirayaa warbaahinta oo dhan laga bilaabo idinku hadda ila jooga iyo kuwa maqlahayaba ha ka shaqeeyeen dadka inay wacyigeliyaan oo anagu warbaahinta labay kala tahay oo warbaahinta ugu saameynta badan waliba waa tan muuqaalka ah tan qoridda ah dad gaar ah akhrin kara waa dad haysta yani fursadihii inay wax ku akhriyaan ah tan muuqaalka ahna meelo fara badan ma gaaro annagu markaan warfaafinta dhigan jirnay waxaa la oran jiray idaacadda ayaa waxay tahay tan kaliya oo meel kasta gaadhaa marka maadaama idaacadda bugtaan oo dhan ka wada shaqaysa atiidka daljir waxaan laga baahan yahay dadka inaad fariin gaarsiisaan inaad dadka barnaamijyo u samaysaan abaaraha jira soo laalaabta abaarahan sababta keentay inaad dadka ugu warantaan sababa cimilo inay jiraan dunida oo dhan ay ka jiro tagayur manaakhi waxa la yiraahdo abaarta markay jirto waxaan ku imaan karaan waxaa jira wadooyin looga baxo ay ka mid tahay dadkii naftooda in la wacyigeliyo keedad ay samaysan karaan keed inay leeyihiin caafimaad ahaan iyo daryeel yani fayadhoor inay ayagu samaystaan inaad isku daydaan in aad bal maaragtay dadkii waxaani way aragnimada ku lahaa ama yaqaanay aad u tagtaan oo wareysataan oo tiraadaan maxaa markaan kale laga qaban karaa waa waxa idinku ku xiran weeye marka maadaama aad idaacad meel kasta laga dhageysanaatiin fursad waxa haysataan idaacaduhu waa ka saameyn badan yihiin wax kastaaba yani muuqaalka magaalooyin gaara koronto inay haysatid inaad lacag leedahay oo telefishinka bay ku xirantahay laakiin idaacadi waa in aad mobile nooc rabo ha noqdee ama idaacadda caadiga dhageysan noqdee ka dhageysan kartid marka idaacadaha dawladaha sidaa daraadeed dictatorka ahay waxaa lagu gartaa waxay xakameeyaan idaacadaha ma xakameeyaan kuwa kale waayo idaacaddu الريف والمدينة مقالة إبادية وقعدها خطرت هذا الإذاعة مركب هذا الإذاعة تين ضدك وعيقلت نوع عسين أصلا ميسان مثلا الخبراء حق نقالها دخل كأن الصومالية سووا وكيد سنجري كيد من هنجر نسمى لهم نفتك ضدك أنا بارتان أو وحى أندري ما يا وحوي ميجي إن الغصب حيو مقالة كل سوء هذا مقالة للصوع ولا السيانة وحكينا كرتا خطر أضفر بدن مركب ضدك أن ميجي كويسان ميجي إنه نلاش الصومالية أسر كويهاي miiga in la hormariyo inay waajib tahay marka inaad wareysataan dadkii ku shaqo lahaa waxaas waa muhiim waad mahadsantahay doctor ashkar maadaama aad waxbarashada sare ama wax daraasad culya loo yaqaano aad ku samaysay warbaahinta iyo isgaarsiinta waxaa jirta su'aal marar badan soo laalaabata waad ogtahay dadka Soomaalida ah markay isu yimaadaan ay suraysanayaan nabad ma sheegta nabad baan sheegnay waxa xigi jirtay roob iyo halkee loo hayaamay iyo xagee daruur ka curata hadda waa ognahay duruufo adag baa dalku maraya warbaahintu ma uga furan tahay door ah inay soo kordhiyaan qaybo masalan la xiriira iyagoo kaashanaya dadka khubarada cimilada iyo maaragtay ama dawladaha maamulada ay dadka u sheegaan meelaha roobabku ka da'een loo hayaami karo meelaha abaartu ku daran tahay oo halkaas ay warbaahintu fursad uga bannaan tahay oo iyaga iyo maaragtay sida Puntland oo kale hadda iyagoo iskaashanaya in dadkii waxyaabahaas oo kale loo sheego waa runtaas xunoo celinaysaa su'aal kale oo ah yani qofka مثلا ama idaacadda ama hay'adda warbaahineed waxay leedahay waxa la yiraahdo drama idaaciya barnaamij drama oo idaacadeed subaxii aroortii marka la soo shaqo galo ilaa inta uu ku xiran yahay shaqadeedu oo galabnimo ama fiidnimo hadda inta ay tahay saacado kala xadidan baa jira saacad kasta ay warbaahineha horumar marka daawanayso مثلا hadda international caalamka ah waxa ku jira waxa akhbaar daqs wararka cimilada waa sax way noqon kartaa inaad cimilada ku dadaan oo halka ah cimiladu saas halkaas roob baa ka daa wararka u fiiri war la helaaba tala la hel warku waa waxa dadku ugu baahi badan yahay Soomaalidu kuma soo jirto oo dad wada wardoon ah marka yani inaad ugu dartaan warka meelaha la helay in halkaas roob ka da'een in halkaas magaciisa ka jiro qofku ku tashanaya laakiin marna anigu oramaayo ku dhiirigelin maayo meel hebel loo fiiri hayaankii hadda muxuu keenay wuxuu keenay roobkii oo da'ay cusubkii cusub soo baxay in xoolo inta la geeyay wixii isla wada baaba'een ku horreeyay wax ma faa'iido meesha joogay culays zaadna waa la saaray taas waxaan u maleynayaa inuu u baahan tahay xogaa nidaam ah iyo la tashi ah la tashanayo yani deegaanka dadka ku shaqada leh oo yaqaana arintan laakiin yani warbaahinta waxa uga balan kaalin ah dhiirigelin iyo wacyigelin ah dadka lagu wacyigelinayo bal inay deegaankooda ilaashadaan يعني dadku inay dhar samaystaan inay beera yani dhirtu maxay ka qayb qaadataa inay roobabka yani soo jeedo yani system TV oo cilmiyaysan in arrimaha looga hadlo waa arrin meesha ku jira arrintan cimiladana waa arrin loo baahan yahay qofku naftigiisu ku sii taligalaya yani war kasta saacad kasta saacad wareed kasta samaynaysan
in cimilada ka mid ahi gunaanadka markay noqoto ha noqoto in lagu daraa wax muhiim waxay dadku maan ku haynayaan inay jiraan bal wax un cimilo iyo deegaan la yiraahdo oo ay kulligan mas'uuliyad inaga saaran tahay in la ilaaliyo maadaama hadda wadankii aad looga hadlayo in deegaankii nabad guur ku dhacay oo dalkii ma aragtay shibuu saxare oo isu wada bedelay oo aan la daryeelin waad mahadsantahay Dr. Ashkir aan kula soo aado dhinacan iyo siyaasadda dawladda Puntland baad ku soo biirtay waxaad ka bilowday agaasimaha warbaahinta dawladda maxaa ka qabatay inta joogtay runtii waa su'aal muhiim ah weeye anigu waxaan liidibay agaasimaha raadiyaha ee TV-ga dawladda Puntland maxaad ka qabatay waa runtii waa su'aal muhiim ah muddo kooban baa joogay anigu horta sanad ah warbaahinta dawladda Puntland aan ka ahaa agaasimo guud sanadkii aan joogay waxaan aaminsanahay inaan wax fara badan aan ka qabtay walow muddo sanad ay wax yar tahay haddaan ku soo koobo waxaan wax ka qabtay idaacad wuxuu ahaa TV kaliya raadiyo TV kaliya oo ahaa aniga markii aan joogay baa horta raadiyaha waaxdeeda la furay oo la keenay runtii waxaan dadka u sheegayaa raadiyaha dawladda Puntland ma ahan raadiye mawjada macnaha FM-ta kaliya ma ahan FM-na wuu leeyahay oo looga faa'iideysan karaa meelaha dhow shanta dunida oo dhanna waa laga dhageysan karaa يعني raadiyaha dawladda Puntland oo waa SW waa mawjada gaaban mawjad qasira weeye marka waa raadiye asagoo kale mid waxa la mid ah Soomaaliya aysan oo laakiin ay jiraan raadiyaal la dhig oo asaga u dhigmo oo kale oo sida VOA iyo BBC oo kale maadaama meel kasta laga dhageysan karo dunida oo dhan kan dawladda Puntlandna dunida oo dhan waa laga dhageysan karaa wuxuu u baahan tahay kaliya in la diyaariyo daraamihii idaacadeed bixi lahaa barnaamijtii meesha lagu gudbin lahaa marka arintaas ay ugu muhiimsan tahay wax ka qabtay wax far badan oo waaga aan jirin baa ku soo kordhay waxaan wax ka qabtay aniga oo aan sheeganahay wax ka qabtay in aan ku dadaalay inaan sameeyo bilowgeeda lahaa in wado aragteen TV-ga waxa ku jira war afka Carabiga ka baxa asaaskeeda bilowgeeda aniga lahaa arintaas la mid ah aan ku dadaalay wax ka qabtay waxaan Google Dig iyo Google Xaar u noqday TV-ga inuu heshiisiyo sameeyo waxaan heshiis la galay raadiyaha RTD bay dhahan Djibouti-aanka oo RTD laakiin Latin America loo aqriyo Djibouti dalka Djibouti heshiis iskaashi aan dhaxmaray heshiisyo kale iskaashi ayaa meelo kale telefishin kale aan dhaxmareen xiriiro caalami ah baan waagayga u soo sameeyay oo Suudaan ha noqoto Cumaan ha noqoto tababaro in looga faa'iidi karo jaamacadaha dalkan waxaan la galay isfahan gooni oo barin loo tabaro oo cilada waxaan ogaaday jirtaa inay tahay warfaafintu cilada jirtaa ma ahan qalab iyo lacagtoona cilada jirtaa waa dad human resource waxa yiraahdo almawaarid albashariya dadka wuxuu baahan in la tabaro aqoontooda kor loo qaado xirfadooda kor loo qaado si ay wax tayo leh bulshada ugu soo gudbiyaan si taa loo gaaro waxaan heshiis iskaashi la galay jaamacadda BSU oo noo ballan qaaday inay ardayda siin doonto scholarship dadka raba inay wax bartaan laakiin nasiib darro lagama faa'iideysan sababta looga faa'iideysan waayana warfaafintu waxay ku jirtaa takhasusaad ayaan Soomaalidu u aragba in wax la barta ay tahay wax la bogsado oo meelaha laga soo iyo la qaato iyo inda adeegnimo iyo ma hadli kartaa iyo waxa u baahan shuruud iyo waxa ay sheegayo kale al-ilqa as-sahafi qofka laga hubinayo makharij al-huruf iyo meelaha qaarkood yani qofku markuu aqrinayo idaacad ku biirayo hatta waxa loo diraa idaacad مثلا quraan kariimka kale masar baan ogaa qofku waxa loo diraa daar al-opera al-masriya waxa la soo barxaa maqaamaat al-musiqa heerarka music codadku aan ku hadlaynahay waa music moogtahay muusiguna wuxuu leeyahay maqaamyo iyo heerar yani maqaamaadkaas la soo baraa ha noqoto maqaam siba maqaam nahwand iyo maqaamaad kale oo jiro dunida oo dhan murugada markay wax jiraan si murugaha wax loo aqriyaa farxadda markay jirto si farxad wax loo aqriyaa marka la rabo wax lagu dhiirigeliyo yani codadku darajad bay kala leeyihiin waxa arkaysa wariye Soomaaliyeed idaacad aan ka shaqeynay ma dhageysanayay oo aqrinaya arin si xamaasi ah تعصيد أو كلا سحماسية لو ما أقريه وحب عنده على نبرة حزن درين تابد مرجو بيوب عنده مركز سي مرجو إنه آخرستوي سأقدر أدخل على صبرة وحنسا كل شيء جايبه مقامات الموسيقى مقام السيقة مقام النهاوند مقام الصبا حب بس كذي مقامات أي الله درا مركز سومالد وحوه هيستان بوري نمدو يكشغين تدو وحفظ كسبود ده مركز بقف كسبود ده ما أردت وكفت صنتاي دوان جودجا أرمى بالشدة
warfaafinta isgaarsiinta ee golaha wakiilada ee Puntland oo baarlamaanka warbixinta siinayay waxay dhaliileen wasaaradda warfaafinta. طبعا wasaaradda warfaafintana waxa hoos yimaada warbaahinta dowladda Puntland. maxay kula tahay sababta dhaliilahaas ku yimaadaan iyadoo dadka qaybtooda ay leeyihiin dhawaan markii madaxweyne Dani uu hoos geynayay warbaahinta dowladda Puntland wasaaradda warfaafinta arrintaas inay wasaaradda culays u keenaysay maadaama maamulada kale oo Soomaaliya hadda oo warbaahintooda dowladdu ay hoos joogto wasaaradda warfaafinta ay sooyaal dheer oo soo jireen leeyihiin marka la barbar dhigo Radio Muqdisho iyo Radio Hargeysa. wasiir dowladda warfaafinta tahay waxbarashada sarana waxaad ku samaysay warbaahinta iyo isgaarsiinta arrintaas maxay kula tahay dhaliisha noocaas? runtii baarlamaanku waa uu noo yeeray waan hortagnay waana arrin dastuuri inaan baarlamaanka hortagno su'aalihiisuna su'aalo macquul ah bay ahaayeen oo caqli gal ah inay weydiiyeen baarlamaanku way jirtaa su'aasha weyn oo weydiiyeen sida aad daawanaysan ba waxay ahayd arrin dadku wada daawanayay يعني cilado way jireen markaas muuqday laakiin warbaahintu runtii san ku sheegayba siyaasad ahaan waxa hoos timaada wasaaradda laakiin waa hay'ad jirto oo magacaabideedu heer agaasimo guud u gaarsiin yahay madaxweynaha soo magacaaba markiina meesha aan joognayna wixii jawaaba oo marka arintaasi naga mudnay darto waan siinay golaha wakiilada ee dowladda Puntland baarlamaanka haddana mar labaad ugu celisid oo kugu celinayaa jawaabta markaas aan siinay arrin waxa jirta maamul loo baahan yahay inaan haddaan nahay maamul ahaan aan wax maaragtay wasaaradda iyada ka hadlaya aan magaciisino waana xalin doonaa jawaabteedana dadku way heli doonaan darbeed. waad mahadsan tahay. Puntland waxa u buuxsantay dhowr laatan sano xagga dowladnimada marka la fiiriyo ma oran karnaa Puntland wax badan lagama gaarin marka dowladdu sida u shaqeyso la fiiriyo private sector ka hadlimayno waxbarashada dadku samaysteen oo private ka u badan oo jaamacadaha iyo iskuulada ka hadlimayno laakiin sida dowladdan u shaqeyso oo kuraasta qabiil lagu wada qaybsado oo wasaaradaha laga yaabo iyadoo dad technical ah oo wasaaraddan aqoon u leh oo experts joogan maalin kasta wasaarad kasta in la geeyo qof qabiilkiisa iyadoo lagu qancinayo ma kula tahay horumar lagama sameyn Puntland meeshii 98 laga aasaasay inay 2022 taagan tahay? runtii saa ma oran karo haddii aan saan dhaho waxaa noqonayaa qof yani gar naqay ma noqonaya. Puntland 98 baa la aasaasay hadda waxaanan shaki ku jirin in Puntland horumar ay gaadhay taas shaki kuma jiro يعني wax badan markaad fiiriso waa dareemi kartaa in horumar la gaaray dhinacyo far badan dhinaca dowladnimada axdi qaramada ayaa dalkan lagu aasaasay maanta dastuur dhamaystiran ay dowladda Puntland leedahay markaas lama oran karo waxba lama qaban waxba la qabtay meesha qalad ma muuqda. Puntland waxay ku bilaabatay wasaarado dhowr ah oo yani aad u kooban maanta meesha markaad u jeedaayo meel gaara iyo dhul gaar ah dowladdu degantahay taas waxba lama qaban lama oran karo waxaan la oran karin anigu waxaan marqaati ka ahay laba xukuumadood oo aan ka tirsanaa golayaasheeda wasiirada ku soo biiray waa xukuumaddan hadda socota iyo xukuumaddii ka horeysay labaduba inta laga qabtay waa waxaan macquul ahayn yani aadan dareemi karin adigu masalan laakiin qof ku dhex jira uu dareemi karo tusaaladan ku soo qof xukuumaddan hadda jirta wax fara badan ay dhinaca dowladnimada ka qabatay oo u dhaqaaqday ha noqoto dhinaca siyaasadaha dowladnimada ha noqoto dhinaca kaabayaasha ay dhisida يعني waad la socotaa hadda waxa wadooyada socdo la dhisayo waa la socotaa yani waxa dib u qaabeyn dib u habeyn socdo waa la socotaa shaqaalaha iyo heerarkoodii wax qaadasho oo xuquuq ah inay kor u ziyaaday waa la socotaa in golayaasha laftigoodii ay kor loo qaado la ziyaadiyay marka qofka ku yiraahday meesheedii waxba laga maqan wax ka jira ma jira sax dhaliilo waa jiraan ilaahay wuxuu baahan in la saxo kuwa la saxayo marka waa kamid tan hadda sheegayso qabiilkii horta qabiilku waaqic laga dulboodi karmaa waa wax jira sidaa daraadeed qofka madaxda ahi ee dowladda Puntland markaas ilaahay mas'uuliyadda u korto u dhiibay wuxuu ku dadaalayaa asagu inuu qabiilkii kii ugu wanaagsan ka soo dhaxsaaro marna ma noqon asoo qabiilkii ma aha kaliya qabiil way waxaan dad isku yimaanahay yani aragtidii jojo لوك يهوبز الأورنجري نظرية العقد الاجتماعي هذه ثقافة عربية تبع تقناي لسبي سوشيال كونتراكتي
وين ماشي الحيرية ماشي كجران لكن دكتور أشكر يضل الحيرينيو waxa la yiraahdaa dadka Soomaalida ana laba waxaan akhriyo buugga Dr. Baadiyo oo alqabiila dawladda Soomaaliya dadka Soomaalida waxa la yiraahdaa laba wax bay aad ugu jajaban yihiin qabiilku labadaas ka mid yahay waa diinta iyo qabiilka Puntland waa sax dawladda wax badan laga qabtay wasaaradda horan xarumaha loo dhisay horumar baa socda hadda one man one vote baa la aaday waa ogtahay dawladda wax badan aan ka ogeyn oo meeshii sunac alqaraar baa ku jirta oo kushinka ku jirta meel badan waa boosas kala duwan ka soo qabatay ma dhici kartaa haddana one man one vote baa la aaday mar Puntland waxa la isweydiinayaa in dawladdeenu waa sax waa la isu tagay waa qabiilo laakiin la isku qaato oo dadka meelaha loo magacaabayo fasalu ahla dhikri in kuntum la ta'lamun qof kasta lagu aadiyo kii beeraha yaqaan beerihiisa aado laakiin adoo ashkira oo PhD ka wata saxaafad iyo iclaam warbaahin ka soo shaqeeyay caafimaadka aan lagu aadinay heerka diyaarsanaanta ila goorma heerka gaarayna kula hadda agteeda wadada agta waan saarnay janihu wuxuu ku maamaha waxa la masaafad 1000 mayl tabda bkhutwa kun mayl يعني مسافة أما الصعود كتلابة كبلابتها تلابة هدوء على بلابة وجوريس ومدحونين دني بلابة إن ضد كانوا قفكوا أستجربوا ودورته يعني تيادي هذه صعتها يعني قفوا نصنطوا كوسو قفك صوصارة وان بلوني كونوا جهورية نفتقوا اسكو ضيّي سمين فينا قفك الله ما إنكوا اسكو ضيّي جهورية بجد دولدي عبد الرحمن فرور اسكو ضيّي هيد عبد الله على اسكو ضيّي مسمي لكن اسكو ضيّي وحى فعل رسمي أبدلي أو شغال أبدلي رسمي أو ضدك وعدورنا عيان كنت نصدق سنة كذب يعني إنه مدحوينه نصيب كذا وهذا وإحنا نقول مدحوين سعد هذه نصيب كيس نقطي إن بلدتك عضيان مركا أنا توالى بلاغي وضدنا والو الصعداء يعني أن مثلا نبي في التفاؤل وخير تجدوه وناك فيش هشانه مركا قفكو أنتم بلايا سادس نقولها وناك سادس نقولها في عن أو نعرف في عني وحلقة فيريو وضدي وان بلونه وكسرنا ضدك حقوا ليين وضداس إن نروح حساب وضدي أبلودين ماذي ما أهان إن نروح كاستشري صنّه يعني هرت يعني أركتيانا دمنتأه يعني موصل وأركتك عضانة قفك واحد سايانا وصلوا بحنين قف يعني قف كلها يعني وحال يعني فلسفتها والرضا الحجر كوحكم الهدم ثم البناء دمين كذب الرسول أنت اللي دميو كذب الرسول عقل هرت ما انقلع معه وقف أسجي وضد دريمة وحربة يعني مثلا تصارهنا يعني جون جرانج السودان بقى موقت ما أنت إلاك شيء ودي سموقته السودان وجميع ما كده من هو نقدر مدحون كوعين قدرك يعني أركتبوا مثلا دنيا السودان الجديد أركتها إذا قبتي دمن ثم الست إنه حلو دمية كده من الرسول ما في عن معه تاس واحد جريبة وحلقة الساعة واحد جري لما يصير دمية دولتنا وحوي وصدي يعني ما عرفتي بلوكيتي أكله يعني مدب بلوكيتي كله دب صار يعني نبي إن خاتم الأنبياء وطوها أخلاق ده وناكسن حتى نفسي يسمى الشيء أيضا القرآن كو الشيء وإنك على خلق عظيم معيري إنما بعثت لأتمم إذا وحكفها مثال حديث سوء لقي لأتمم مكارم الأخلاق إن وحكوري أسجع إجرين أسجع ولا ما استراي مركا يعني قف كستن حلو بهاي هي أنا ما مرنا ما أورن كرو دولة فدرالك حتى ما أنت ما أورن كرو مركا مو هرسي دولة دي كوريسة شيء جدي فدرالك مركا مو هرسي وأركتلاس ورد حاجة كأمسية دومين كذب السيد بالي هذا وحفي عنا معه وحبا جري وحجري على سيد بستري مركا دولة ده يدا هذا أنا وبنتك وزير دولها كأهاي حكومة دان وحي وضع نبضي وحكومة بستري لهيد كوا كده بيان وسيد بستري إلا ما يشوف كده بيسال جاو مركا السجاشن يسدد دي إلا لما كون إلا بيلا بعتك وما أنت أمرنا وحمل قبت أدي وخفك سؤالك وحل قبت والله مجرد وبين له خفكاس إلهي ومضوا بين بوشين وحوال قبتي وحبا جران وتانا كل شيء وحقبتك وحقور أيانكو أحد غرامات بنكو أساسا ما أنت دستور رسمي على إنه وحقبتك وحقوين وماش وقصر يسمان تجاري لحدنا لح حبين وقرها وكيلة على برلمانك بواحد دورنا اسكو ضيقي كود أيام ما أنت بلوني بل إن ضدكو عدكودو كسر صاران قلياش هوس الدولة هوس إلا اللي سوق جارو تيسر ودadku ku dartaan marka wax qabad waa jiray wax qabad marna ma jiro laakiin marka laga eego dhinaca adeegyada bulshada ee dawladdu dadka siiso
taasaa ka mid ah sooma oran karno meelaha loo baahan yahay in la aado weli dhaliishu ka jirto maadaama dawladdeenu weli dadka aysan waxba siinin waxbarashada ilmaha aysan ka bixin waxyaabahaas oo dhan waqti alkamaal lilah inaan ku saxan waan jeclahay iskoolada maanta waxaa jira iskoolo yani public oo guud oo dawladdu ay gacanta ku hayso waxbarashadana Puntland dawlad ahaan waxa lagu tilmaamaa meelaha ugu fiican dawladda xubinta ka dawladda federaalka ayay ugu fiican tahay ha noqoto xagga manhajka waxbarasho iyo xagga siyaasadaha waxbarasho ee dawladda Puntland degan aad bay noo amaaneen dadka kale oo xataa yani fiiri qofku asaga wax iska sheega ma ahane yani marqaati ugu wanaagsani waa kan dibadda muuqaalka dibadda ka arkaya horta marqaati ugu wanaagsan dadku aad bay noo amaaneen dhinacaas in horumar laga gaaro xagga waxbarashada waana sii socotaa naftooda tan ku sheegay dhameystirka waa sii socda waxay u baahan tahay kawaadirteedii iyo dadkeedii iyo waqtigeedii in la siiyo waa mahadsan tahay Dr. Cabdifataax Nuur Ashkir oo martina ugu ahaa toddobaadkan barnaamijka Martisoor aad baa u mahadsan tahay Dr. waana ku faraxsanahay inaan hore martina ugu ahaa toddobaadkan barnaamijka Martisoor aad baa u mahadsan tahay Dr. waana ku faraxsanahay inaan hore idinka badan aad baa mahadsan thank you ma ogtahay macmil in akoonka Sayfin akoon oo ka mid ah akoomada Salaam Banki aad dhigan karto lacagaha adigoo jooga gurigaaga goobtaada shaqada iyo meel kastaba waxaadna ku dhigan kartaa adigoo maraya habkan fudud fadlan garaac xidig 886 xidig akoonkaaga bangiga xidig lacagta 4 gees Sayfin akoon waa koonto dhigaal ah oo macmiilku ku keedsan karo lacagihiisa si fudud waxaadna kala bixi kartaa adigoo taga xarumaha bangiga oo kaliya ku keedso lacagahaaga koontada dhigaal ee bangiga Salaam